wafdigan ka socday dowladda Jarmalka ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayagoo kulamo la qaatay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif. Kulanka oo ahaa mid saxaafaddu ay dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa saxaafaddu uga warbixiyay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda ku-meel gaarka Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa wuxuu sheegay in wafdigan ay kala saxiixdeen in lagu wareejiyo dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya lacago gaaraya 94 milyan oo euro kuwa oo ay lahayd dowladda dhexe dalka Soomaaliya. maanta noo yimid wasiirka iskaashiga caalamiga iyo horumarinta waddanka Jarmal wasiirkan oo runtii Jarmal ka yimid arrintan waxay ka dambeysay markii sanadkii hore September ay wasiirro ay aadeen waddanka Jarmalka taasoo ay kala xaajoonayeen sidii dhaqaalihii baaqday burburkii dowladda dhexe ay noo soo celiyaan kadib markay arkeen ifafaalaha iyo isbeddelka ku dhacay waddanka Soomaaliya inay xukuumaddu runtii dadaal badan muujisay noqotayna mid u baahan in la taageero si ay hore ugu soo socoto lacag runtii lagu qiyaasay 94 milyan oo lacagta euro ah ay dhimanka noo hayeen lacagtana waa lacag noo aruurtay waxaana lagu rin jiray waagi hore mashaariicda Soomaaliyeed sida beeraha biyaha waxyaabo badan booliiska marka tii ayaan runtii hadda noo soo noqotay. wuxuu sidoo kale sheegay wasiirka ganacsiga xukuumadda ku-meel gaarka Soomaaliya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif in lacagaha si aan iminka lagu wareejinin dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya balse sida uu sheegay muhiim ay tahay in meel lagu ogaado lacagahaasi. wasiirka ganacsiga ayaa tilmaamay in lacagahaasi lagu wareejinayo dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya hay'ad Jarmal ah taa oo si toos ah ugu gacan gelinaysa dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya. waa ogtahay lacagta saddex nin borsan ugu ma keenin laakiin waxa muhiim ah in la ogolaado in la soo daayo marka hore lacagahan inta badan waxa la soo marin jiray FAO baan loo soo mariyay lacag 10 milyan oo hor la bixiyay oo mashaariic lagu talagalay laakiin wixii hadda ka dambeeya waxaan ka codsanay in la soo mariyo hay'ad Jarmalka ay leeyihiin oo si toos ah dowladda uga soo xiriiraysa. Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa tilmaamay in lacagahaasi lagu fulin jiray mashruucaadkii dowladda dhexe dalka Soomaaliya sida beeraha biyaha iyo sidoo kale booliiska. wafdigan ka socday dowladda Jarmalka ayaa wuxuu imaanayaa xilli muddooyinkii dambe magaalada Muqdisho ay soo gaarayeen wufuud caalami ah